السلام عليكم. culimada qaar waxa ay ku qeexaan samirka ama dulqaadka inuu yahay dabeecadda ugu fiican ee qofka bani'aadamka ah yeelan karo, ama marka loo eego aqoonta cilmi nafsiga inay sumad u tahay iimaan xooggan oo ah mid ka celiya nafta inay samayso xumaanta. waxa hubaala in bani'aadamku aanay ku nagaan karin nolol uu raalli ku yahay ama dhadhan u leh oo caafimaad qabta haddii aanu dulqaad jirin. abuu cusmaan waxa uu yidhi, qofka la siiyey dulqaad waa qof ku tababaray naftiisa inuu maareeyo xalna u helo duruufaha adag. camar binu cusmaan almaki waxa uu yidhi, dulqaadashadu waa inaad tahay qof ilaahay u dhow iyo inaad aqbashay kuna raalli tahay imtixaankiisa adigoo aan cabannin, murugoonin, kana tiiraanyoonin. alkhawaas waxa uu yidhi, sabirka ama dulqaadashadu waa inaad adeecday kuna camal fashay qur-aanka iyo sunnada. culimo kale ayaa iyaguna ku sheegay in sabirka ama dulqaadku yahay inaad iska daysa cabashada dadka loo cawdo. cali bin abidaalib allaha ka raalli ahaaday waxa uu yidhi, sabirka ama dulqaadashadu waa filashada iyo inaad isku hadlayso gargaarka ilaahay. abuu muxamed alxariiri waxa uu yidhi, sabir ama dulqaadasha waxa weeye inaad iskumid tahay wakhtiga dhibka iyo wakhtiga ay nolosha caadiga ku tahay, mar kastana ad ahaato mid deggan oo faraxsan. ibnuqayim waxa uu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaaya, taasi waa ay adag tahay, sidaana uma abuurnin. ilaahay waxa uu inoo abuuray qaab iyo hab aynu dareenno faraqa u dhexeeya wakhtiga murugada iyo dhibka iyo wakhtiga ay farxadi jirto. waxa keliya aatee aan samayn karnaana waxa weeye inaan nafta deganaansho ku hayno xilliga ay adag tahay ama ay muruga jirto. markaa sabirka ama dulqaadashadu maaha inaad xilli kasta iskusi tahay, taasina waa mid awooddeena ka baxsan, kumana jirto sida ay dabeecadda bini'aadamku u abuuran tahay. haddii aynu eegno dulqaadka iyo cabashadu waxay noqotaa laba nooc. midda hore waxa weeye inaad u cabato ilaahay subxaanuhuye, taasina maaha mid ka hor imanaysa dulqaadka, waxaana sameeyey nebiyo badan. tusaale ahaan markii uu nebi yacquub uu lahaa, qaala innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun. waxaan keliya ateen uga cabanayaa murugadayda iyo walbahaarkayga allah. sidoo kale qur-aanka ayaa waxa uu inoo sheegayaa nebi ayuub markii uu lahaa, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha aatee waxa uu u sujuuday rabbigiisa isagoo oo leh, ilaahayow waxaan kaaga cabanayaa tamardarradayda iyo gargaar la'aantayda. nebi muuse calayhi salaam ayaa isaguna u sujuuday rabbigiisa isagoo oo leh, ilaahayow mahadnaq iyo sharaf adiga ayaa ay kuu sugnaatay, adiga oo keliyaata ayaa tahay in loo cawdo, waxa aanad tahay ka keliyaata inu ku helno gargaar, adiga ayaannu ku tala saarannay, mana jirto awoodi garabgalkaaga la'aantiisa. nooca kale ee sabirka ama dulqaadashadu waa markaa duruufahaaga aad uga cabato ama aad la wadaagto dadka kale, ha noqoto si toosa oo hadal aan ku gudbinno ama si dadbanoo daymo dareena jidha aan ku gudbinno. taasina waxa ay baalmarsan tahay nuxurka sabirka ama dulqaadka. cilmi nafsi ahaan qof kastaa waxa uu leeyahay laba awoodood oo u shaqeeya nafahantiisa. mid waa awoodda qofka dabada kaga riixda taasoo horseeda samaynta ficillo, tan kalena waa awoodda qofka ka celisa ama ka hor joogsata ficillo kale. markaa sabirku si tayo leh waxa uu isku xidhaa awoodda qofka u horseeda samaynta ficillo wanaag keenaya iyo awoodda qofka ka hor joogsanaysa ama u diidaysa samaynta ficillo laga yaabo inay khatar ku yihiin naftiisa iyo nafaha dadyowga kale. mid ka mid a culimmada ayaa yidhi, in la helo sabir ama dulqaad waxa weeye in qof dareenkiisa guud iyo ahmiyadda uu siiyo diintu ay ka awood iyo ka xoog weyn tahay awooda xune ay naftiisu jeceshahay. laakiin dareenka guud iyo ahmiyadda diinta ayaa haddii sabirkeedu xoog yahay yareeya ama xakameeya ku dhicista hawada xune ay naftu jeceshahay. labada awoodood ayaa dagaal ku jira. mararka qaarkood waxa ay guushu raacdaa diinta iyo ujeeddada abuurka, mar kalena hawada iyo doonista nafta ayaa adkaata. goobta dagaalkaasi ka dhacayaana waa qalbiga qofka. haddii aynu eegno qaybaha nolosha ka mida ee looga baahan yahay sabirka waxaa ka mid ah cibaadada iyo hoggaansamidda awaamirta ilaahay, ka fogaanta xumaanta iyo ficilada xunxun, aqbalaadda xukumada ilaahay ee kala duwan. tanina waa waanadii uu luqmaansiiyey wiilkiisa markii uu ku lahaa, yaa bunaya aqimi asalaa wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabaka ina daalika min casmi alumuur. wiilkaygiiyow salaada oog, wanaagga far xumaantana jooji, kuna sabir waxyaabaha ku soo gaadha, taasina waa cidhibta arrimaha oo dhan. halkaa inoogu joogo barnaamijkeenni maantu.
inta aynu barnaamij kale ku wada kulmayno. wassalaamu calaykum.